نبى شلي يمد وشلي صباح قلك يهرو 4 ساعة 5 ساعة ميلها سهل nin saaxiibkiisa ahaa maalin dhaweyto qiso ku dhacday iiga sheekeeyey markaasaa waxaan ku yidhi waxaan rabi lahaa asaga laftigiisa inaan ka wariyo oo aan arko ninkii baan la kulmay shalay waxaan weydiiyey qisadii aan saaxiibkiis ka maqlay siday ahayd buu igu sheegay wuxuu yidhi dibaddaan joogay Canada habeenkii baan seexday anoo iska caafimaad qabo fiyow ilbaa idamtay dam hal ilbaan waxba ka arkaay dhag bay tiri khalaas waa seexad wax yar ka bacdi tii kalena waa dantay labadii indhood dam bay noqdeen wiil yaroo dhagala baa ii jooguu yidhi haweentuna shaqay aadaa telefoonku haddaa dhacaya asaguna maqli mahayo aniguna uma jeedo markaasaan xanuunkaan igu yimid dhakhaatiirtii baan aadnay wiil halkaan tag dhakhtar hebel u tag mid hebel u tag ana degdeg ah la igu sameeyey oo kala duwan natiijadii waxay noqotay waxba lagama qaban karo markii dambe dhakhtarkii wuxuu yiri ugu dambeeyay laba mid weeye inaad wadatid eeyku hogaamiya oo eeygu aad ka haysatid eeygaas aad gadatid iyo inaad u shaan dheer oo la qaadatid dadka indhaha la qaataan labadaas mid u yeel waqti kale iska lum anoo xaaladii labadii midna aan samayn oo gurigii jooga ayaa magaalada Canada waxa yimid nin wadaada adeerkay baa u tago arrintii u sheegay keen buu yidhi markii la ii geeyey wuxuu yidhi waxaan musiibo kugu dhacday weeye ku sabar ducadaanna waa i baray buu yidhi adhib ilba'sa rab annaas washfi anta shaafi laa shifaa'a ilaa shifaa'uk shifaa'an laa yugaadiru saqam habeenkii baan soo kacaa salaatuleyl baan u soo kacaa salliga aan haysta dhinacu qiblada u jeeda saacad yar oo ku dul dhigan masaa u taabtaa oo iska tukadaa buu ducadaana ilaahay baan ku baryaa oo ku tuuba 3 bilood muddo intaas la eg markaan indha la'aan ahaa waxaan arkayaan aan la arag ayaan habeenkii dambe salaatuleyl tukaday ducadii ku ducaystay waan seexday buu salligii laftigiisii baan isku tuuray buu salaadii subaxiga oo aan la gaarin subaxii markii la gaaray baa haweentii intay soo dul istaagtay ikicisay wiil haddaan saas madaxa u soo qaaday labadii indhood baba waa siday bari hore ahaan jireen ba Allahu akbar waa siday bari hore ahaan jireen markaas ay ugu dambeysay shalay oo aan arkay laga bilaabo waagaas ilaa hadda indhahayga wax yar wax weyn midna kama dareemin shalay oo aan arkay wuxuu waxba kama dareemin wax xun wax oo indha la'aana maantaas ilaa yoomina hada wax yari wax weyn wax iga maqan maan qofka muuminka ah markii dhibaatadu ay ku dhacdo waxa la rabaa qalbigiisu markiiba inuunan u jeesanin dhakhtar hebel isbitaal hebel kaasa takhasus gooniya haysta kaasa fa'u safiir hal yimaada asbaabtu ha aado laakiin qalbigiisu markiiba si toos ah inuu ugu xirmo khaliqul asbab ilaaha keena jiradan inuu ku xirmo ilaahi wuxuu leeyahay wa in yamsaska allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu hadii ilaahay dib kugu taabto wax ka kashfin karo ka qaadi kara mala illa isaga mooyaan isaga keenay un baqaadi kara wa in yamsaska bi khayrin fa huwa ala kulli shay'in qadir hadii ilaahay khayr kugu asiibo kugu taabtana waxaad ogaanaysaa ilaahay wax kasta inuu awoodo